waa lagu qasaaray cid ku faa'iidaan male markay aanu kala jawaabay qurbaha fiyaalada markii laga hadlo waa lagu qasaaray qurbaha waa lagu faa'iido waa lagu qasaaray labadaba ma lagu qasaaray ama waa lagu faa'iido warka qasaaray iska badan inta badan qasaaraheeda iska badan ama lagu faa'iido ama lagu qasaaray wallahi qaarna way ku khasaaray qaarna nolosha qurbaha waa dadka qaarna ku faa'iido qaarna ku qasaaray Soomaali badan ayaa u soo hayaamay qurbaha si ay u helaan nolol ka duwan noloshii ay ku noolayeen qurbaha ma lagu faa'iiday mase waa lagu qasaaray su'aashan ayaan weydiiyay qaar ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Kassel ee dalka Jarmalka waxaan ka weydiinaynaa nolosha qurbaha ma lagu qasaaray ama waa lagu faa'iido nolosha qurbaha waa lagu qasaaray cid ku faa'iidaan male kii oo wax ka helayna ciyaalka ka tagay kii wax ka waayna saa wax ka waayna okay dad badan ay jira Soomaali oo hadda Liibiya u soo maray ama Saharaha dad Soomaali jooga rabo in qurbaha soo aadaan maxaad kula talinaysaa gurigeena jooga ma ahayd baasidi meesha ku kanta okay ila sana joogto qurbaha way arag 26 sax waxna kama hayno wallahi qaarna way ku khasaaray qaarna way ku faa'iideen dadka isku mid ma okay khasaaraha badan markay aad fiirisid marka okay sidaan la socono dadka qurbaha soo aad waxa u badan dhalinyaradaas ka faa'iideyaan qorasho iyo nolol inta badan way ka faa'iideysteen inta badan qaar beerta adigu magacaaga ku bilaabay barnaamijka waan dhaway walaal magacay waa Cabdicasiis okay waxaan ka weydiinayaa saaxiib ka waran nolosha qurbaha ma lagu qasaaray ama waa lagu faa'iiday bismillahir rahmaanir rahiim wallahi nolosha qurbuhu waa nolol iska badan inta badan qasaaraheeda iska badan faa'iidadeedana way wadataa oo qof aragtida lama cabiri karo mooti laakiin haddii aynu eegno kale waddankeena joogno kale soo qaadana mooti marka waddankeena joogno waxa badanna soo galay dhalinyar markaa dhalinyartaasi shaqo laga helay aan waddankii oolino waddankeena oo kale soo isku dusay jaamacadaha laga helay iskuulaha laga helay carruur lagu dhalay oo lagu dhaqmay ganacsi iyo qurbaha ma lagu qasaaray ama waa lagu faa'iiday warka qasaaray qasaaraha marna meel walba ya jira oo lagu qasaaray yani ma faa'iido okay faa'iido ma jirtaa faa'iido ma jirto okay waxa jira qasaare leen badan qasaare badan okay Soomaali badan oo ku nool dalka Soomaaliya ayaa amiga inay yimaadaan wadamada Yurub maxaa kula talinaysaa kula talinaha wali kala talinaha inay wadan isku roogalo marna ilaahay iyo aaminano isku iman sabana Allah qurbaha ay magacayada Abdullah Said Muhammad aan leeshiina liiraada waxaan joognaa magaalada Kassel wadanka Jarmalka qurbaha xaqiiqiyan ma su'aal أنا خارج جواب قربها fiyaalada markii laga hadlo waa lagu khasaaray okay waxyaabaha lagu khasaaray kan khasaaraha lafdhabar waxa uu ah dhaqanka oo lumay madan beebet waxa uu sameeyay waa dhalinyaro khaasatan dumar iyo dhalinyaro badan yihiin dhalinyarada dumar oo la xadi karaa aan ku wada marka khaasatan wadamada kaleeto oo dadku ka yimaada waxoogaa waa aqoonsan yahay ama baasboor والله وجهك فائدة هبل نروي وجوجا أما سويدن وجوجا تاس وفائدة ودك يدك جوجا حقان يدو دقيسة ويلتقي هالكاسو جوجا في لا لا سمح له قبل يوم ما قرنا إياه شينا أنا بروح سامي دوني أروح هذي لو قرنا آخر كحاضر ولا إيش بجلسة كم جوجنا إلى هنا بالدنيا يعني ودك الله ينور سيدا لا Soomaali badan ay ku aaminayaan inay imaan qaar badan oo hantida ama dukaamada ama hantida ayaa soo gaday qaar ayaa saxaraha ku dhibaataysan maxaad kula talinaysaa والله كواس ترى إذا مغلي مايان وطبعاً سنة إنترميديو هذا الجري وحلا لها وقربها استيو جودن كنا من أطفال لكن بس في شوك سنة مايانة وهوي أنت إيمان قطع إلهي هو كفيو أنت كلا سنة إلهي سوى هذه وودن كنا من أطفال إلهي أنت كسر وقضينا إلهي نبدليها كسر ولانا أوكي nolosha qurbaha miyay ku fiican tahay singalnimada ama family ku fiican single fiican tahay qurbaha dad badan aad ku dhibaataysan Liibiya iyo Sahara dad badan oo hanti leh ayaa raba inay lacag badan ku dhiibaan si ay u yimaadaan qurbaha maxaa kula talinaysaa والله waxaan kula talinayaa dadka imika Sahara jooga iyagu waxa oranaya soo socda
noqonina yimaada kuwa waddankii joogana waxaan leeyahay waqtiga waa idinka dhacay ee macno kale keena halka way dhammaatay way buuxsantay waa la jooga markaa macno kale iyo arrin kale keena kuwa saxaraha iyo liibiya iyo inta dhowna waxaan leeyahay soo socda soo gala nasiibkiina qaadaysaane soo socda soo dhawaada kuwa waddankii joogana saasaan leeyahay idinku macno kale keena way dhammaatay markaa saasaan leeyahay wallaahi niyow dee nool ahaan qurbo wuxuu ku fiicay horta adiga xoog oo dhalinyara inaad soo gasho si aad wax uga qabato way qurbo qof weyn kuma fiicno wayna aragnay dad badan waayilo badan hooyooyin la keenay ama dadkii hore markaynu imka aragnay qurbaha inaga soo horeeyay 40 sano joogay qofkaas dee wadkii markii joognay baa la oran jiray qofkaas qurbo ku yimid laakiin halkan markaynu ugu nimid xaaladdu ku nool yahay ta dhalinyaradu ay ku nooshahay waa boqolkiiba ka wanaagsan marka qurbo wuxuu ku wanaagsan yahay dadka dhalinyarada hadda soo galay kusoo dhawaad barnaamijka adigoo magacaaga ku bilaabay marka hore محمد برافي محمد ودنك جرماني اوكي محمد adoo ka waramaya nolosha qurbaha ma lagu faa'iido ama lagu khasaar nolosha qurbaha waa lagu faa'iido waa lagu khasaar labadaba okay ma noo sharaxi kartaa qaabka lagu faa'iido iyo qaabka lagu khasaar faa'iidada dil laho waxa lagu faa'iiday horta niyo ma sha Allah meeshan $100 iyo soo dir iyo شافتي وصل قبيل وحصل لهم هذا قفل بوله هذه الحمد لله ضدك كم خسارين وضدنا أركرتنا دي على اللي وريتنا أيوة قد صمر أصوات خالد الحمد لله سلع صحراء وحاول شيء صبر هذا ضل أنت قاعد تقول حاجات أنا أحرق سنين مش سنين إنهم ما شو قربها وكرنا وكفانا قرنا وكفانا qaarka ku faa'iiday dhalinyarada yar oo hadda baranaya ha waxay dadka oo meeshan ruumaya dadka waaweyn okay maxaa leedahay dad badan oo Soomaali ayaa jira oo Soomaali jooga oo ku haminaya inay yimaadaan qurbaha nolosha qurbaha anaga ka socnaa waddanka socnaa khasaarada ka waran maxaa khasaare danka faa'iido waa sheegtay dhalinyarada ka faa'iiday khasaarada deegaanka xadigeeda yuro dhama khasaara xaaladooda aad hadda waqtiga xaalada kasaga ay tahay lama soo geli karo oo meel kasta waa la xiray dhibaatooyinka jirana waxa weeye kulli Soomaalida hadda meesha waa aad bay uga baahan yihiin dhalinyarada isoo wax barasho u yimid oo hadda wada ka noqonaya waddankiisa aan u shaqeynaya waddankiisa u laabanay laakiin qof sii jooga meesha nolol ka raadinaya meesha nolol ma taalo وري عبد الناصر محمود حاج أحمد عبد الناصر قجوفا مقالة كاسل ذلك جرمركا